wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Danjire Maxamed Saalax Al Nadiif ayaa maanta gaadiid ku wareejiyay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed kuwaas oo loogu talagalay in loogu adeego bulshada oo ay kaga qayb qaataan xagga sugidda amniga. Danjire Maxamed Saalax Al Nadiif ayaa hoosta ka xariiqay in gaadiidka ay ka kooban yihiin 10 gaari nooca ay Soomaalidu u taqaano cabdibilaha ah waxa uuna xusay in midowga Afrika uu dadaal ugu jiro sidii ay kaga qayb qaadan lahaayeen xasilinta nabadgelyada guud ahaan Soomaaliya isla markaana ay sii wadayaan taageerada ay siinayaan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya sida uu tilmaamay taliyaha hoggaanka saadka ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed Janaraal Cabdullaahi Xasan Bariise oo goobta ka hadlay ayaa tilmaamay in gaadiidka lagu wareejiyay ciidanka booliiska Soomaaliyeed lagu xoojin doono howlgallada ciidamada ay ku sugayaan amniga isaga oo danjiraha uga mahad celiyay sida ay u garab taagan yihiin ciidanka booliiska Soomaaliyeed. xafladaas oo ku saabsaneeday dan 10 cabdibile baabuurka Toyota Land Cruiser loo yaqaan cabdibile oo cusub oo wakiilka xogayaha guud ee yuuda oo soo wakiishay taliyaha booliiska Amisom oo ku wareejiyay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed. xafladaas oo si weyn loo soo agaasimay kana dhacday sidaan horeba idinku sheegay airportka waxaana la ku guddoonsiiyay 10 kaas baabuur oo loogu talagalay hordhacna ah horana muxuu ahay wax waa noo soo gaareen laakiin gaadiid kale oo noo soo socdo loogu talagalay tayeynta ciidanka booliiska si uu u guto waajibaadkiisa qaran ee saaran ee sugidda amniga ah. waxaan shaki ku jirin sida baryahanba muxuu ahay ka muuqata oo la arki karo lana dareemi karo dardargelinta sugidda amniga gobolka Banaadir. munaasabada wareejinta gaadiidka oo ay ka qayb galeen saraakiil kala duwan oo ciidan ayaa waxa la isla meel dhigay in la xoojiyo wada shaqeynta ka dhaxaysa ciidanka booliiska Soomaaliya iyo kuwa Amisom si loo dardargeliyo howlaha amniga lagu xaqiijinayo